Assalaamu calaykum. Inaad isku kalsoonaataa waa furaha guusha iyo nolol fiican. Taasina waxay kaa caawinaysaa barashada dad badan, kuwaana waxaad ka heli kartaa saaxiibo kuu dhow oo aad kala hadasho markuu dhib ku haysto. Waxay kale kaa caawinaysaa inaad mashruuc bilowdo, waayo waxaad fahansan tahay la dhaqanka dadka iyo sidaad macmiil badan u yeelan lahayd. Inaad isku kalsoonaataa waxa kale kaa caawinaysaa waxyaabo badan oo hore u rabtay inaad u qabato, laakiin cabsi darteed aad ku dhici weysay ama aad isku kalsoonaad lahayd haddaad waxaad qabato armad ku fashilantaa. Waxay kale kaa caawinaysaa inaad dibadda u soo saarto riyooyinkaaga iyo waxaad doonaysa inaad qabato, oo tusto dadka waxa qalbigaaga ku jira iyo waxaad rabto inaad gaadho. Kalsoonidu maaha wax lagu dhasho. Haddaan tusaale kuu soo qaato, ilmo yar 2 carruuraba waan dhahayaa. mid wuxuu ku soo koray guri hooyo aabba is jecel oo ilaalinayay, farxadiisana ka fikirayay, wuxuu rabana u qabanayay, barayna muhiimadda uu rabo inuu gaaro. Ka kalena wuxuu ku soo koray guri hooyo aabba markaas isku qaylinaya, isagu wuxuu ku soo koray nolol adag. markasta waxa lagu oranay doqon baa tahay ama damiin kolba saad u taqaano. iskuulka dhibca fiican muu keenin, ardayda iskuulka dhan way ku qosli jireen ama way xinin jireen. labadaas maanta hadii la soo agstaajiyo, mid waxay tahay kalsoonidiisa 100% oo waa kii reerka fiican ka dhashay ama waalidka fiican ka dhashay. midna kalsoonida aad bay u hooseysaa oo waxa ka buuxa xaasidnimo, waxa ka buuxa caro, waxa ka buuxa murugo, waana kay dhashay reerka kale ee maxay hooyadii iyo aabaheed markaas isleen jireen. marka kalsoonidu maaha waxay dadku ku dhashaan ee waa wax la barto, waa wax training lagu qaato, sad kubadba training lagu qaadato. dadka qaar ba markii saas oo kale ku dhacdo waxay dareemaan dareemo xun, ma rabaan dadka la hadlaan, way ka cabsanayaan, dareemo xun bay niyadooda ku furayaan. laakiin adigu eedaas ma lihid, laakiin eed waxaad leedahay markaad weynaatay dareen iyo caqlinaad ku soo galay. haddii aad adigu kalsoonidaada waxba u tari weysay oo waxba u qaban weysay oo wixii yaraantaadii lagugu soo barbaariyay aad wali ku dhagan tahay, taas ayaa eedaada ah hadda. sidaa darteed maanta waxaan ka hadlaynaa 8 qodob sidaad u dhis lahayd kalsoonidaada, aanaad u dareemi lahayd inaad tahay qof madax bannaan. magacaygu waa Muune Ismaaciil Maxamed, ku soo dhawo mar labaad channelkayga. 8 qodob waxay kaa caawin doonaan inaad adigu noqoto noloshaada qofkii wax ku aamin lahaa, say noloshaada u ekaan lahayd ama waxaad rabto inaad laakiin taanan waxaas oo dhan bilaabin. aan ka hadalo qodob muhiim ah oo dadka intooda badan qalad ay u fahmaan. inaad isku kalsoonaataa maahan inaad tahay qof ka ugu fiican adduunka, qofka ugu awoodda badan leh, qofka ugu quruxda badan leh. laakiin waxa weeyaan qofka isku kalsooni, qofka markuu qalad galo qaladkiisa aan dadka kala saarin, ee fahma, ee yiraahdo anaa qaladkaa sameeyay, ee qirta sida uu sixi lahaana falowgeeda gala. waa qofka markuu wax rabo inuu gaaro aan ku marmarsoon waxay waxaasan dooni rabay inaan xasan rabay inaan gaaro, laakiin ee waxa weeyaan qofka yiraahdo waxay waxaasan rabay inaan gaaro waanan gaaraya. ka weeyaan qofka isku kalsoon ee maaha qofka kibirka badan leh, qofka isku kalsoon. qodobka koowaad ee barnaamijkeena ah, si joogto ah u kobci naftaada. mar labaad aan ku celiyo, si joogto ah u kobci naftaada. waxa muhiim ah inaad si joogto ah aad naftaada uga shaqeyso. maskaxdeena waxa jirta qayb la shaqeysa dareemada qarsoon, taasoo maalin walba jirkeena ka hesha information ama fariimo kala duwan. qaybtaasoo kaliya ku kantarooli karto waxyaabaha sida dhabta u qabato. haddaan tusaale kuu soo qaato, subaxdii marka saa u toosto waxaad jeceshahay inaad wejiga dhaqato, ilkahana cadayato. haddaad subaxaha ka mid aanad samaynin waxaad dareemaysaa culays, dadka lama qosli kartid, waa xishoonaysaa, waayo maskaxdaadu waxay isku programmisay subaxdii markaad soo kacdo inaad wejiga dhaqato, ilkahana cadayato. waxaanay kuu soo deynaysaa markaa hormoono ay kugu saarayso culays, sababtoo ah wixii waajib ahaa ma qabanin. markaas waxaad sida dhab ahaanta u qabato waxaa jira qayb kantaroolta maskaxdeena oo kugu soo celcelinaysa markaste, waana caado ay la qabsanayso haddii aad rabto markasta inaad qabato. markaas muhiim weeye inaad naftaada iyo maskaxdaada ka shaqaysiiso. sidaa darteed akhri wax badan. markaa maskaxdaada qaybta qarsooni waxay ogaan doontaa inaad tahay diyaar ood rabto inaad wax cusub barato. inta badan guriga markaan joogno oo waxba qabanahaynin ama guriga ka dhex shaqaynayno, waxaan dhegeysanaa muusig ama waxaan daawanaa waxyaabo qosol
amba waxaan daawanaa waxyaabo siyaasadda ku saabsan iyo hebel baa hebel caayay iyo heblaaya hebel soo jawaabtay. intaad waxa ku mashquulayso haddii aad dhegeysan lahayd waxyaabo naftaada anfacaya, YouTube-ka markaad gasho waxaad ka helaysaa kumanaan video oo naftaada dhiirigelinaya oo sare kuu qaadaya. haddii intaa ku mashquul lahayd kuwaad dhegeysan lahayd, naftaadu way isdhisi lahayd. maskaxdaada adigoon ogeyn ayaa waxay iska saari lahayd dareemada hoos kuu dhigaya ee negative-ka ah. waxay u bedeli lahayd dareemada xunxun dareemo fiican bay u bedeli lahayd. adigoon ogeyn baad arki lahayd say naftaada isugu kalsoon tahay, waayo waxaad tahay qof wax badan ogaaday. midda kale waxaa jira buugaag laysku akhriyo oo dhegeysanayso uun. ma garanay af Soomaaliga inay jiraan buugaagtaasi, laakiin luqado kale hataa taqaano sida Englishka kale waa lagu akhrinaya, hadda waad dhegeysanaysaa buugaagta. yacni waxna waad qabanaysaa, gamci waad ka shaqaynaysaa waxaad rabtay inaad qabato, buugaagtaasna waa lagu akhrinaya. markaad buuggaad rabtaa dooranaysaa. buugaag waxaa jira lagu akhrinaya sida naftaada kalsooni buuxda u siin lahayd, sida wax u dhisi lahayd, sida wax u bedeli lahayd, sida mashruuc u bilaabi lahayd. waxyaabo badan baad helaysaa internetka, YouTube-ka dhexdiisa ka helaysaa. marka inta siyaasad iyo heeso iyo waxaan waxbaba ka qaban karin ood qaadanayso keliya inboard keliya aad qaadanayso, inaad wax kale oo ka fiican ku bedeli lahayd sid kalsoonidaada u dhiso. marka qodobkeena koowaad waxaan kusoo afmeeri lahaa waxaan macquulayn ma jiro. akhri wax badan, kalsooni buuxdanaysa sii, ogowna wax badan. qodobkeena labaad aynu soo gudubno, ha isbarbar dhigin dadka kale. mar labaad aan ku celiyo, ha isbarbar dhigin dadka kale. sideen u samaysanahay bini'aadanimo ahaan ayaa waxay tahay inaan isbarbar dhigno dadka kale. taasina waxaa sababtay waxaan rabnaa inaan ka fiicnaano ama sidoo kale noqono. laakiin inaad qof kale isbarbar dhigtaa adiga kalsoonidaada adigoon ogeyn dilaysaa. meel kastoo joogto waxaad la kulmi doontaa dad kaa caqli badan, dad kaa fiican ama dad kaa qurux badan, laakiin adigu waxaad leedahay wax kuu gaara oo in dadka kale. waxa kale dadku isbarbar dhigaanba waxaa ka mid ah sawiraantii dadku ay Facebook ama Instagram soo dhigaan, sawiro fake ah ama been ah oo lagu hagaajiyay kamarad. sawiradaasi ku qaadatay malaha saacado inay hagaajiyaan oo ay duuduubaan. mid kale waxaad ilaawi karin amba adigu aad samaysaba sawir haddaad meel soo dhigayso, waxaad soo dhigtaa sawirkaaga kaad ugu jeceshahay, kaad isleedahay wuu qurux badan yahay, kaad ugu quruxda badan taad hagaajisay. jir qurux badan, muuqaal qurux badan, meel qurux badan, magaalo qurux badan. sawirkaas leedahay wuu qurux badan yahay, inagoo murugaysan oo ooyina sawirkama qaadno, dadana ma soo dhigno, waayo waxaan ognahay inaan fool xunahay. markasta qofku sawirka soo dhigo wuxuu isku dayaa sawir qurux badan inuu soo dhigo. dadka qaarna sawiraanta quruxda badan waxay u haystaan in dadku sawirada qurux badan yihiin, laakiin bal adigu fikir markaad sawir soo dhigayso Facebook, Instagram, meesha doonaba ha ahaado, sawir noocee soo dhigaysaa, sawirkaad ugu quruxda badan soo dhigaysaa. marka muhiim maaha sawiro beena oo nolosha xaqiiqada dhabta aan jirin inaad isbarbar dhigto oo tiraahdo saasaan rabaa inaad. markastoo qof isbarbar dhigto waxaad iska tooganaysaa wadnaha. markaa qodobkeena labaad aan ku soo afmeero, qofna ha isbarbar dhigin ama cidna ha isbarbar dhigin. adigu waxaad tahay qof ka duwan dadka kale. ilaahay wuxuu ku abuuray si gooniya aanu dadka kale u abuurin. markaa adigu saa tahay isku kalsoono, muuqaalkaagana ku faraxsan. qodobkeena saddexaad, bedel diiradaada. mar labaad, bedel diiradaada. waxaan ka wadaa bedel diiradaada wax kastoo negative aad ku fikiraysay. waxaan ka wadaa bedel diiradaada waxyaabihii xumaa iyo dhaqamadii xumaad ku fikiraysay. waxaan ka wadaa bedel diiradaada caadooyinkaagii ahaa cab, seexo, internet, heeso iyo waxyaabaha noloshaada waxba ku kordhinayn ee waqtigana kaa luminaya. intaas markaad bedesho ood qabato waxyaabahaad rabtay inaad qabato, waxaad dareemaysaa inaad tahay qof jira kalsoonina leh. markastoo dareemo xunxun dareento, isku day inaad qorto waxyaabihii fiicnaa eed soo qabatay, sida iskuulkaad dhammaysay oo dhibco fiican kaga baxday, jaamacaddaad dhammaysay, qofaad caawisay, gaarigaad baratay se loo wado. kolli waxaas waxaad imika u arkaysaa waxyaabo yaryar, laakiin maskaxdaada waxay ka caawinayaan inay wax ku fikirto aan negative ahayn, yacni waxaan xumayn ay ku fikirto wax fiican. bedelkii ahaa inay ku fikirto anigu waxba ma qaban karo, anigu wax kasta waan ku guul daraystaa. waxay ku fikiraysaa taaba waan gaadhay, ta ku xigana waan gaadhayaa. waxaad kale isku daydaa maalintii inaad qorto 5 minutna ha ahaatee waxyaabaha fiicanaad maanta qabatay, waxyaabaha fiicanaad maanta gaadhay. qasab maaha inay wax waaweyn noqdaan waxaad qabatay maanta. haddana tusaale soo qaato, saaka goor horan hurdada ka kacay, goor horna salaadii
tukaday salaadii subaxaan u kacay yani hurdadiis kuma sii dayn wax shaqo fiican ma maanta qabtay maanta hamigaygu wuu fiicnaa waxyaabahan ku fikirayay waxyaabaha yaryar qabatay amba ku fikirtay haddaad qorto kulli wax yar bay hadda agtaada ka yihiin laakiin marba wax weyn agtaada ka noqonaya marka qodobkeena saddexaad waxaan kusoo gabagabeynayaa bedel diiradaada waxyaabihii qaldanaad ku fikiraysana bedel waxyaabo fiicanna u bedel tirsana guulaha yaryaraad gaadhay intaad keliya tirsan lahayd guulaha waaweyn qodobkeena afraad baro sidaad naftaada u dhiirigelin lahayd mar labaadan ku celiyo baro sidaad naftaada u dhiirigelin lahayd dhammaantiin waxayna soo maraa maalmo adag waxay doonaan bahaadaan kuwaasoo maskaxdaada ku reeba xasuuso aan kaa laakiin haddaad naftaada dhiirigeliso oo maalmaha adagaad isku dhiibin ogow adigoon ogeyn ayay maskaxdaada iyo naftaadu ku seef garaynaysaa fikir positive taasoo ay naftaadu ku dhiiranayso inay ka bixi karto kalsooni buuxdan aysa siinayso si tartiibna waxaa u dhismaya kalsoonida naftaada qodobkeen afraad waxaan kusoo afmeerayaa baro sidaad isu dhiirigelin lahayd qaladaadkaad hore soo samaysana sidii aanay kuu xirxirin ood ugu xoroobi lahayd horena aad u socon lahayd qodobkeena shanaad ku dadaal guulaha yaryar mar labaad ku dadaal waan ogahay guulaha waaweyne inay ka muhiimsan yihiin guulaha yaryar laakiin guulaha yaryar waxay kuu kaxaynayaan wadada tusaale haddaan soo qaato inaad iskuulka noqoto ka ugu sarreeya inaad faamiligaaga isku xiriiriso inaad dadka caawiso ood ka caawiso waxaad ku dhaanto inaad caafimaadkaaga ka taxadirto kuwaasoo dhan waxay ku siinayaan dareen fiican dareenkaa fiicanna wuxuu ku siinayaa kalsoonidaasna waxay kuu horseedaysaa inaad guul weyn gaadho tusaale ahaan haddaad bilowdo maalin waliba 10 minute inaad wax akhriso ama sport samayso kolley waxay kula muuqataa waxyaabo yaryar ama waqti yar oo kooban bay kula muuqataa laakiin waxyaabaha yar oo isku tagay ayaa waxay kuu horseedayaan isbedel weyn kalsooni buuxdana way ku siinayaan marka qodobkeena shanaad waxaan ku soo afmeerayaa ku dadaal guulaha yar sidaad ugu dadaasho guulaha waaweyn markaad guul yar kastood gaadhana qoro naftaadana u mahad celin taasina waxay ku siinaysaa kalsooni qodobka lixaad ka fogow dadka fikirada xun ee negative-ka ah mar labaadaan ku celiyo ka fogow dadka fikirada xun ee negative-ka ah markastood ka agdhowdahay asxaab xun oo negative markasta ku fikira markasta wax kasta si xun u arka adiguna way ku saameynaysaa adigoon ogeyn waxaad arkaysaa adigoo sidooda u dhaqmaya maamaha Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa waxaan caaniyo biyahaynba waa la kala qaadaa maamaha kale Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa baruur baa baruuriya qubmisa markastood la socota asxaabta xun ay noloshoodu tahay qaad sigaar xan ku tiri kuteen siday u dhaqmayaan baad u dhaqmaysaa kalsoonidoodu hadday hoose sidaas uma taaduna u hooseynaysaa markaas waxaan ku odhan lahaa ka fogow asxaabta xunxun qodobkeena toddobaad ka fogow waxyaabaha aanad jeclayn mar labaadaan ku celiyo ka fogow waxyaabaha aanad jeclayn wiil aan asxaabna oon magaaladooda deganahay ayaa markaad weydiiso wuxuu qabanaya beritoona wuxuu ku dhahayaa waxaan tegayaa cadaabtii subxaan allah cadaabta wuxuu ka wadaa shaqadii wuxuu ka shaqeeyaa shaqo culus oo aanu awoodiisa ahayn aan jeclayn inuu tago laakiin sababta uga shaqeynaya kaliya waxay tahay inuu lacag fiican ka helo markasta wuu tagaa subax kasta markuu kacayo isagoo karahsanayo ay shaqadiisa tagaa markuu fasax haystana isagoo faraxsan baad arkaysaa markaad aragtaa odhanaysaa maanta fasax baad leedahay soo maaha markaas waxaad ku faraxsanayn waxay doontaba ahaato shaqo ha ahaato family ha ahaato yani family waxaan ku wadaa xaaskaaga markaas is qabanaysaan ama ninkaaga waxaad ku faraxsanayn niyad samaan u haynin weligaa horumarka gaari maysid markastood joogto meelaad ku faraxsanayn markastood qabanayso waxaad ku faraxsanayn markastood la qoslayso dadaad ku faraxsanayn weligaa horumarka ma gaadhaysid waayo naftaada jaanis maad siin ay ku ogaato waxay rabto inay qabato waxay rabto inay tahay iyo waxay ku fiican tahay weligaana kalsooni buuxda heli maysid waayo waxaad rabto weligaa ay Allah si niyad samaan u qaban si niyad ku jirto ma oran maanta waxa rabaa si fiican u qabto sababtoo ah waxaas dan kaliya kugu qasbaysa ma rabtid inaad qabato marka ka fogow waxyaabaha aanad rabin inaad qabato hagna ku qasbi naftaada qodobkeena 8aad ugu dambeeya barnaamijkeena maanta
baro meelahaad ku fiican tahay. mar labadan ku celiyo, baro meelahaad ku fiican tahay. qof kastoo inaga midi meel buu ku fiican yahay, markaa baro oo waxaad awoodda saartaa inaad barato halkaad ku fiican tahay. tusaale ahaan waxaad ku fiican tahay inaad dadka ka hor hadashood mawduucyo usoo jeediso, ama waxaad jeceshahay inaad kubadda ciyaarto, ama waxaad ku fiican tahay wax akhriska, waxaad jeceshahay inaad wax akhrisato, ama waxaad ku fiican tahay farsamada gacanta. kolley wuxuunbaad ku fiican tahay, ee isku day inaad ogaato waxaad adigu ku fiican tahay. inaad adigu ogaato waxaad ku fiican tahay adigay muhiim kuu tahay. waxay muhiim u tahay maskaxdaada, waxay muhiim u tahay jidhkaaga, waxay muhiim u tahay fahankaaga, waxay kale muhiim u tahay kalsoonidaada. mar kastood ogaato waxaad ku fiican tahay, waxaa horumar ama dhismaya maskaxdaada, waxaana dhismaya kalsoonidaada dhabta ah, taasoo ah inaad ogaatay waxaad ku fiican tahay. marka barnaamijkeena maanta waxaan kusoo afmeerayaa, adigu ogow waxay tahay haybadaadu, dadkana ha ku dayan. adigu ogow inaad leedahay wax kuu gaaro, haybad gaara aad leedahay, naftaadana kalsooni buuxda sii. mar kastana isku day barnaamijyada dhiirigelinta inaad dhagaysato. intaasaan barnaamijkeena maanta kusoo gabagabeynayaa. magacayga waa Muuna Ismaaciil Maxamed. waa inoo kulanti dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.